Hargeysa ee dalka ka qabsoomay guud ahaanba 28 bishii November aynu soo dhaafnay. Xaaladda dalka Syria oo maalinba tahayta ka sii daraysa iyo waliba awoodda madaxweynaha dalkaasi Suuriya Master Bashar al-Assad oo hoos sii socota. waddanka Mexico oo daboolka ka qaaday in aanay hub dambe iyo waliba sanadaha militariga ee ciidamada aanay ka iibin doonin wadamada Iraq, Afghanistan, Al-Qaeda iyo Taliban. qodobo kale aad u xiiso badan ayaa barnaamijkeena wargeysadii waxa qoraan intaanu ku guda jirno ku falanqeyn doonaa balse qodobka ugu horeeya barnaamijkeena ayaa jecelahay daawadayaal in Axmed Sakiino soo qabto waxaan ku soo qaadan doonaa komishanka doorashooyinka qaranka ee caasimadda Hargeysa ayaa waxa ay daboolka ka qaadeen 25 xubnood ee ku guuleystay doorashada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ee dalka ka qabsoontay 28 bisha November aynu soo dhaafnay. gudoomiyaha komishanka ee caasimadda Hargeysa Siciid Jaamac Gudaal ayaa sheegay in 230,000 oo qof ay ka codeeyeen magaalada Hargeysa isla markaasina saamiyo kala duwan ay ku guuleysteen xisbiyada iyo ururada ka qayb qaadanaya doorashadu waxaana ay xisbiyada iyo ururada ku tartamaya doorashada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ay u kala heleen sidan. xisbiga kulmiye waxa uu helay 60,956 cod oo u dhiganta 7 xildhibaan oo kala ah Xanad Xaashi Axmed Caydiid, Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteko, Cismaan Xasan Faarax Waxar, Injineer Yuusuf Warsame Saciid, Axmed Siyaad Maxamed Giire, Axmed Daahir Axmed Magan, Cabdi Cali Yuusuf Liibaan. xisbiga ucid waxa uu helay 35,823 cod waxaana u soo baxay 4 xildhibaan oo kala ah Maxamed Aw Aadan Weerax, Khadar Ibraahim Axmed Maax, Cabdicasiis Maxamed Xaashi, Maxamed Cabdi Aadan Yuusuf. ururka ummadda waxa uu helay 25,307 cod waxaana uu helay 3 xildhibaan oo kala ah Axmed Cali Hayba Nuur, Khalid Cabdi Awad Abyan, Mustafa Cismaan Daahir Aadan. ururka dalsan waxa uu helay 20,060 cod waxaana ay u dhigantaa 2 xildhibaan oo ururkaasi ku guuleystay doorashada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxaana ay kala yihiin Cabdicasiis Aadan Haybe Maxamed iyo Fuaad Saxadiid. ururka Rays waxa uu helay 11,865 cod waxaana uu helay 1 xildhibaan oo ah Khadar Xuseen Cali Ismaaciil. ururka wadani waxa uu helay 39,369 cod waxaana uu helay 4 xildhibaan oo kala Maxamed Warsade Caalim Timacade, Cabdiqani Yuusuf Ina Macalin, Cabdilaahi Aadan Cali Cabbaas, Cabdirasaaq Faarax Xasan Qowden. ururka Xaqsoor waxa uu helay 33,366 cod waxaana uu helay 4 xildhibaan oo kala ah Salebaan Daahir Raagsaale, Cabdilaahi Aw Aadan Maxamed Cawl, Cabdilaahi Saciid Faarax Diiriye iyo Deeq Ducaale Cismaan Guureed. natiijadan hordhaca ah ee caasimadda Hargeysa ayaa soo dhameystirtay guud ahaanba natiijooyinkii ka soo baxay gobolada iyo degmooyinka iyada oo la filayo in ay natiijada kama dambaysta ah ay ku dhawaaqi doonaan guddida sare ee doorashooyinka qaranka. haddii Axmed Sakiino soo qaadano qodobkeena labaad ee barnaamijkeena wargeysada waxa qoraan wargeyska Al-Qudus Al-Arabi ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu warbixin ka qoray sida ay u gaabisay awooda ciidamada sirdoonka ee waddanka Israa'iil. wargeyska amurahaasi